السلام عليكم. qof kasta oo adduunka ku nooli waxa uu jecel yahay inuu guulaysto. Maanta waxaan idhahayaa sababo kugu hagaya inaad guulaysato. Waad guulaysan kartaa. Waxaad haysataa hadiyadda ugu sarreysa dunida, taasoo ah inaad nooshahay. Sidaa darteed, ma jiro wax aanad qaban karin. Qofna kaama joojin karo inaad riyooto ama aad hadaf yeelato. Adiga kaliya ayaa isku joojin kara inaad ka rumayso riyooyinkaaga. Guulahaada waxaa didi kara kartida iyo awoodda aad leedahay. Qof kastoo guulaysta iyo qof kastoo guuldarraysta waxay ka siman yihiin, waxayna wada haystaan 24 saacadood. Kaliya waxay isku dhaafeen 24 saacadood ee haystaan ayaa midna ka faa'iidaystay, midna uu ku khasaariyey. Ninka adduunka ugu taajirsan wuxuu haystaa 24 saacadood. Ninka adduunka ugu faqiirsan wuxuu haystaa 24 saacadood. Sidaa darteed, waa inaad waqtigaada ka faa'iidaysataa haddii aad doonayso inaad guulaysato. Aamin Allihii ku abuuray. Aamin qofka aad tahay. Sidoo kale aamin inaad naftaada bedeli karto ama aad wax u qaban karto. Qof kasta waxa uu jecel yahay inuu noloshiisa bedelo oo uu ka bedelo halkii ay shalay taagnayd amba ay maraysay. Sideedaba, guushu ma aha wax si kedis ah isaga dhaca amba isaga yimaada. Adiga ayay kugu xidhan tahay kolba waqtiga aad ku bixiso inaad guulaysato. Adiga ayaa ka mas'uula. Ha hilmaamin inaad guulaysan karto. Xataa haddii aad isku dayday dhowr jeer, aad fashilantay, ama xiriir kaa xumaaday, amba xil aad weyday, amba xoolo kaa khasaaray, waxaad go'aansatay inaad dib u soo abaabusho. Aadan hubin halkii aad ka bilaabi lahayd. Sidoo kale aadan u dhaqmin jirin. Dhibaato badanna ay haro kaa soo gaartay. Waad guulaysan kartaa. Mar kasta waxaad u baahan tahay kaliya inaad naftaada aaminto, inaad aqbasho wixii ku soo mara, inaad yeelato go'aan adag, dadaal iyo doonitaan badan oo aad ku rabto shayga aad ku gaadhaysid. Xusuusnow, waad ka geesisan tahay sida aad tahay ama sida aad iska aaminsan tahay. Waad ka qiimo badan tahay sida aad u haysato. Waad ka sarreysaa sida dadka kale u arkaan. Waad ku xoog badan tahay sida aad u muuqato. Waad ka caqli badan tahay sida aad u fikirayso. Aamin una kalsoonow naftaada. Allihii ku abuuray tala saaro. Hiigso meel sare yeelo. Hallabo ku dadaal inaad wax macno leh aad ku soo kordhiso adduunkan. Aad ugana tagto dhaxal waara. Ka faa'iidayso fursaddan dahabiga ah ee nolosha. Ku noolow nolol nadiif ah. Alla ayaa raalli ka ahaanaya. Waanaad gaari doontaa wixii aad rabto. Weli waxaad haysataa fursaddaasoo ah inaad hadda nooshahay. Ka faa'iidayso fursadaha dahabiga ah ee noloshaada kaasoo maraya intaad nooshahay. Sidoo kale ma fiicna inaad qoomamayso. Qoomamadu uma fiicna caafimaadka qofka bini'aadanka ah. Sidoo kale niyad jabka iyo qoomamayntu waa isku mid, waayo labaduba waxay ku imanayaan marka aad guuldarraysato. Ha caadaysanin guuldarrada. Weligaa u noolow sida ugu quruxda badan ee aad isleedahay waad nooshahay. Dadka xun ka fogow si aad noloshaada ugu hoggaamiso nolol heer sare ah. Ka faa'iidayso 24 saacadood ee aad nolosha haysato. Maxaa yeelay ninka adduunka ugu taajirsan wuxuu haystaa 24 saacadood. Adna waxaad haysataa 24 saacadood. Labadiina faqriga idin dhexeeya waa isna uu ka faa'iidaystay, adna waad dayacday. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay fiidiyowgan. Sidoo kale gaadsii asxaabta jecel inay had iyo jeer noloshooda ka guulaystaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.